shirar u socda fanaaniinta Ingiriiska iyo Yurub fanaaniin kale baa la dalbanaya waxa jirta dhinac kale in dagaalka loo rogo oo shooyo kale la sameeyo oo fanaaniinta iyo laftarkoodu ay ka muuqataan oo fanaaniinta kale loo yeero shooyo la qabto meel kasta uu tagayo show kale oo fanaaniin isku dhafan ay iyaguna ka agdhajistaan showga qulubkaas jira oo mixnadaas systemka habkaas isticmaalayaan doorkan كل وناكسن مركو روح حقاقة ما تعلني وقتك عندك داون السيد هذا تاي مركي كوجور رسالة هالك صوب وقتنا نجمد نقاء وسبسكرايب شعره سروال ayaa lay bixiyay calan hebel ayuu sitaa calaamada cunsuriga ku dhaji godku galaba aynu banadno iska soo muxibhees qaarinay buraburayaan la moodo kuwa istaanka barorta loo goleeyay adna soo xidho khamiis aduguna niqaab iyo dharkii diinta ku boodbood arfankiiba soo kuwa naxashka ku galbinaya hadda ka daloobso ku warabay ee ii waran oo xaalku halku maraya موضوع ما تدوننا كذا لو حكوا سبسي هاي فنانك محمد بيكي أو لنا على السوشيال ميديا هديت هاي يوتيوب ريسكا يا هديت هاي فيسبوك جبا أنا لو هذا لي موضوع يكره الدول مرنا أرانا يا قاعد هذا البلد تجي أو مدرسي سومالي ويك وبرنامج كقريب قلي عيال الله وكلا قريب سمي مرنا موضوع كلا يا أرانا يا وحلود دي كدهان inuu London ku qabsado wax show isaga u gaar ah show private oo u gaar ah inuu ku qaban karo Ingiriiska iyo guud ahaan Yurub mawduucaas oo dad fara badan ay su'aal iska weydiinayaan qaarkoodina soo weydiiyeen ayaan bal dogaan xaalku sugu jiro horta marka hore Somali Week wuxuu soo xidhmay 26 bisha isaga soo xiray madal hool ah oo weyn isagu goobta markuu joogay ee uu ka heesayna muuqaaladii laga soo duubay waa kuwan كبقوا علوشو نولش عصب سودوي نولش عصب سودوي نولش عصب سودوي نولش عصب سودوي وقتيقو على الرياء نولش عصب سودوي نولش عصب سودوي نولش عصب سودوي نولش عصب سودوي هيا هيا بيكي hadda waxa jirta dadku waxay isweydiinayaan dagaalka iyo dadka islaayay iyo waxa laga joojinayo horta meesha Ingiriis baa la yiraahdaa Yurubna waa la yiraahdaa oo wadamada horumaray sharciga iyo kala dambeynta iyo nidaamku ka jiro ma aha Afrika qaliban oo qulban oo qof kasta wuxuu doonayo uu sameeyo sidoo rabo hirgelinayo musmaaqsu dilay oo wax kasta ay kaaga hirgeli karayaan halka sharciga ka shaqeeya manaha hebel iyo hebel reer hebel iyo reer hebel nacayb iyo jacayl midna waxa kuma hirgalaan manaha beel ay kaaga hirgeli karayso adigu wixii dooqaaga ah ee ku cajab gelinay siyaasadda xudoonaysid laakiin sidoo sharcigu yahay iyo waxyaabahaas baa halka ka hirgeli karay marka waa been abuur aan sal iyo raad lahayn ta oranaysa waxa loo diiday barnaamijyo halka kula ta kale
iyaduna gacanka hadalka iyo meesha la isku laayay taasina waa been abuur iyo alifaad oo waxa la isu keenay labada hab ama labada muuqaal la isu keenay waa laba madal iyo laba goob oo kala duwan aan isku meel iyo isku cayn iyo isku nooc toon ahayn taas waa taa laakiin sida xaqiiqadii ah ay runtu tahay waxa jirta isku dayo kala duwan shirar u socda fanaaniinta Ingiriiska iyo Yurub fanaaniin kale baa la dalbanaya waxa jirta dhinac kale in dagaalka loo rogo oo shooyo kale la sameeyo oo fanaaniinta iyo laftarkoodu ay ka muuqurtaan oo fanaaniinta kale loo yeero showyo la qabto meel kasta uu tagayo show kale oo fanaaniin isku dhafan ay iyaguna ka agdhajistaan showga qulubkaas jira oo mixnadaas systemka habkaas isticmaalayaan doorkan laakiin ma jirayso mana jirto waan joojinaya iyo waad joojinaysaa iyo waan kaa xidhay iyo waad iga xidhay taa maaha macnuhu laakiin maskax kale la isticmaalaya oo u dhigmaysa ama u dhiganta in la isticmaalo shooyo kale oo had iyo jeer ah waan kaa qulbay berigii ciyaalnimadii waan kaa qulbaa shaqayn jirtay ama waad iga qulubtay ama waan qulbaynaa ma garanaysaa oo deedna garoonka yaraad ku ciyaaraysaan dhagaxaan la dhigo ama 9 kubadood kale la keeno oo deedna jantar oo qolobo goolal meel kale ka samaysato baashu markaa way rogan tahay marka taas baa jirta iyo mixnada hawshaas laakiin waxa qurux badan oo quman wanaagsan oo qiimo leh in ninka idinla jooga inaad sida ugu wanaagsan aad u soo dhaweysaan si ay u joogsato ama ay u istaagto abtirsiinta la isku abtirinayo iyo fanaaniintan kolba mar mid wax laga jarayo fanaaniintu waxa wanaagsan inay sidii barigii hore ay ahaadaan waayo waxa la yidhi bowda rag midba maalin baa qaawantay maanta adigaa la birrina walaalkaa waa la saa dumar kale ka waxa ma wareegto marka maalintii walaalada lahaayeen haddaad ka yar ciidayso adna maalintaada waad leedahay adna maalintaada way ku taala marka waxa wanaagsan reer Ingiriis sida ka yiri jireen fanaaniinta kale iyo had iyo jeer sida wanaagsan ay u qaban jireen iyo sidii doorkii hore 2015 ay isagu soo dhaweeyeen inay doorkana ay u soo dhaweeyaan oo meesha laga saaro mixnadaha iyo doorkan kala jaajadka ah had iyo jeer dadku kala doorto wanaan karaan laakiin la isku mid ay danta guud wixii fanaaniin baa la wada yahay fanaaniintu inay ay wada shaqeeyaan baa wanaagsan oo aanay kala shaqeynta imika waxa jirta wala kala shaqeynaya ilaa iyo Nairobi baa qoleen gacan fudud ay ka tagan baa leeyahay marka waxa wanaagsan dooqiyan sida hawshu tahay ama xajadu tahay inaynu u abaarno oo inuu ka fakarnaa Soomaalinimada iyo qofkani inuu ku yahay martiduna ma laha ku tacadii karto anuu waxaan aaminsanahay oo nogahay in bandhig fanaaniyada ama barnaamijyada uu isagu leeyahay ay hirgeli doonaan laakiin ka ciideynta iyo ku ciideyntu waxa la wax ka soo noqonaya ama wax ka hirgeli karaya ma jiraan wuxuu bay noqonaysaa in qofku ku sharaf dhaco ama uu ku magac dhaco ama uu godob ku yeesho marka hadda jeerna ma wanaagsan inaad Soomaali dhexdeeda godob meelaha kale godob ku yeelo laakiin Soomaali dhexdeeda inaad godob ku yeelato qurux iyo qaayo midna maaha fanaaniinta Ingiriiska waxa la war saaxiibayaal idinku marna ha oganina marna yaa idin ogaa idinku dookhina xubnaha ka ogan waxa wanaagsan idinkuba inta ugu badan qolooyinkan qurba jooga iyagu baa dhulka Soomaaliyeed hadii jeer inta ugu badan marti ku ah marka idinkuna tahay lagu tacaaleenina oo albaabina lahayn lagu garaacina mawduuca imika suuqa la soo gelinayo warbaahinta loo adeegsanayo sidan baa la sameeyay waa mawduuc la doonayo in
ama weynayso lagu sii saaro arrimo kale oo aan waxba saa u sii weyneyn ama tijaabo ah oo dadka lagu sii tijaabinayo laakiin isla iyaga unbaa shaxdan kale isticmaalay isla iyaga unbaa shaxda isticmaalay war ninka xumaan iyo wanaag sida gobonimadu tahay ha laga yeelo ha loo soo dhaweeyo qofkuna xaq wuxuu kugu leeyahay marka uu marti ku yahay inaad soo dhaweyso haddaad uu marti ku yahay dee xumaan iyo wanaag badde xumaanta jeebka iska gasho wanaagana jeebka gasho martida sidii laga yeeli jiray un ka yeel xaaladdu saasay isugu xidhan tahay mar kastana bulshada ku nool Yurub iyo Ingiriiska uu halkaa uu joogo mar kasta idinku ha ahaanina dhagxaan la adeegsado oo dadku ay isku adeegsadaan la isku shishido qolada soo turto qolada soo turto laakiin waxa ay ahaataan qolo iyagu go'aanka iyo ka go'ista leh iyagu oo idinku hogaamiya fanaanku inay idinku hogaamiya marka hadii jeer sida wanaag ku jira sameeya martidana sida quruxda badneed ee ka yeeli jireen oo ka yeela aad baad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.